بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. maanta oo ah maalin axada taariikhduna ay 21 bisha 12 2025 waxaan joognaa degmada Laskeel gaar ahaan tuulada Dhubataan joognaa guud ahaan degmada Laskeel waxaan ku wareejinay maanta 280 qoys deeqdaasi soo bixisay hay'adda King Salman Foundation ayna fulinaysay oo soo gaarsiisay hay'adda diyaargarowga afooyinka iyo kaydka raashinka qaranka. waxaan halkan si gaar ah uga mahadnaqayaa gudoomiyaha hay'adda diyaargarowga afooyinka kaydka raashinka qaranka Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Ismaaciil iyo ku-xigeenka Cabdiraxmaan Maxamuud Xamdulle oo runtii nagu hogaaminayay deeqdan raashinkeena guud ahaan ka qaybinay gobolka Maroodijeex inay soo wada gaadho. sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa gudoomiyaha degmada Laskeel Mudane Axmed Haybe Cali iyo xogeeyo si wanaagsan oo la shaqeeyay runtii sidii deeqdan ay u soo gaari lahayd degmada ayna u soo xuleen dadkii danyarta ahaa iyo dadkii abaaruhu saameeyeen ee degmada kuwaasoo maanta ay halkan ku guddoonsiin doonaan deeqda dhan 280 qoys. runtii degmada Laskeel waa degmo weyn oo fac weyn oo deegaano fara badan xukunta abaarta ka jirtaana ay kala mid tahay guud ahaan abaarta ka jirta dalka oo dhan gaar ahaan gobolka Maroodijeex. deeqdana runtii deeq kooban weeyaan unugna kuma wada filna degmada baahida ka jirta iyo abaarta ka jirtaba laakiin waxaan ballan qaadanay inaan soo kordhino. sidoo kale degmada maha markii koowaad iyo labaad iyo saddexaad sanadkan oo kaliya markii saddexaad aan deeq raashin soo gaarsiino wada shaqayn joogtaana waan leenahay. waxaan uga mahadnaqayaa gudoomiyaha sida hufan ee uu noola shaqeeyo iyo dadaalka ugu jira si dadkiisa ula dareen noqon la xilliyada adag. guud ahaan waxaan u mahadnaqayaa shaqaalaha hay'adda Nardford warbaahinteeda shaqaalahayga kale la shaqeynaya ee guud ahaan gobolka Maroodijeex. aad baa mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. halkan waxaa nala jooga Cabdi Xakiin isuduwaha aafooyinka iyo abaaraha ka hortagga kaydka raashinka waxayna soo gaarsiin 280 qoys oo u xulay danyarta laguna qaadan doono degmada Laskeel tuuladeeda Dhubato oo u dooray halkii ugu baahida badnayd. degmaduna waa degmo ballaaran 28 tuulo waqtigii dayrtay la heli jiray dadku ma helin. aad baan uga mahad celinaynaa kaydka raashinka deeqda ayna soo gaarsiiyeen horena way noo soo gaarsiin jireen iminkana way soo gaarsiiyeen insha Allah inay nooga soo kordhiyaan waa ku rajo weynahay. dadku aad u tabcaana oo roobkii dayrtay helin xoolo dhaqatana insha Allah dhammaan Al Salman shirkadda soo gaarsiisay hay'adda khayriga ee Al Salman waa uga mahad celinaynaa. joognaa degmada Farweyne ee gobolka Maroodijeex oo soo gaarsiinay deeq raashin oo dhan 300 qoys. deeqdaasoo ay soo bixisay hay'adda King Salman Foundation oo qaybinteedana ku laga hay'adda diyaargarowga afooyinka kaydka raashinka qaranka. runtii degmada Farweyne waa degmo fac weyn oo taariikhiya oo deegaano badan xukunta. intii aan soo soconay waxaan indhaha ku soo aragnay in abaarta baaxadda leh ka jirta guud ahaan dalka ay la sameeyeen. degmaduna waxay xukuntaa deegaano aad u ballaaran. degmada waxaan leenahay wada shaqayn joogta. waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha degmada Farweyne Faysal iyo xogeeyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka. runtii xogeeyaha imka nala jooga Khadar Maxamed Ciise si wanaagsan buu noola shaqeeyay oo hawshan qorsheynteedii iyo qaadisteedii iyo intaaba aan ka soo wada xidhiidhnay dadaal badan bay geliyeen sidii ay degmada deeqdan u soo gaari lahayd. waxaan kaloo u mahadnaqayaa gudoomiyaha hay'adda diyaargarowga afooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Ismaaciil iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Maxamuud Xamdulle oo iyaguna qaybta ugu weyn ka qaatay sidii guud ahaan gobolka iyo dalka oo dhanba xilligan gurmad looga sameyn lahaa iyagoo fulinaya siyaasadda xukuumadda wada jiri waxqabad ee uu hogaaminayay madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi. aad iyo aad baan iyaguna u mahadnaqayaa dadaalkooda iyo hogaamintoodaba. sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa tiimka Nardford ee ka shaqeynaya gobolka Maroodijeex oo tan iyo maalintii aan furnay daahfurka raashinka u taagnaa sidii hawshaas ay ugu hirgeli lahayd sida ugu hufan sida ugu daacadsan iyo sida ugu dadaalka badanba. guud ahaan waxaan u mahadnaqayaa hay'adda diyaargarowga afooyinka kaydka raashinka iyo degmada Farweyne oo runtii iyaguna mar walba si wanaagsan noola shaqeeya
sanadkan oo keliya dhowr deeqood oo kala duwan ayaan degmada keennay mar walbana wada shaqayn joogtaa baan leenahay maamulkeega aad iyo aad baan u mahadsantihiin assalaamu calaykum ugu horeyn ilaahay baa mahadle noo suurtageliyey inaanu isugu nimaadno xarunta degmada Faraweyne tiimkan nagu wareejinayay raashinka ee ka socday kaydka raashinka qaranka iyo Nutford waa kala wareegnay 300 qoys baan kala wareegnay waxaanu 300 qoys ugu talagalnay inaanu u qaybno 15 tuulo hawshaasina si wanaagsan oo hufan bay noogu qabsoontay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin mar walbana wada shaqayn joogtaa baanu leenahay insha Allah waxaanu gaarsiin doonaa dadaalkana tuulooyinka kale ee baaqiga harsan aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waanu ka gudoonay deeqdaas inuu soo gaadhay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan joognaa degmada Dacarta gobolka Maroodijeex taasoo soo gaarsiinay deeq raashin oo dhan 200 qoys deeqdaas oo kamid ahayd gurmadkii abaaraha aan ka wadnay gobolka Maroodijeex guud ahaan runtii degmadu waxay la qabtaa xaaladda abaarta iyo biyo la'aanta ka jirta dhammaan dalka oo dhan gaar ahaan gobolka Maroodijeex gudoomiyaha hay'adda Nutford iyo dhammaan shaqaaleynaha hay'adda Nutford oo na soo gaarsiiyay deeq dhan 200 qoys iyadoo jiraan xilliyo adag oo abaaro degmada ka jirto iyo dhammaan gobolka iyo dhammaan waddanka Jamhuuriyadda Somaliland halka waxaan mar labaad ugu mahad celinayaa dadweynaha sharafta leh ee deegaanka degmada Dacarta oo si qurux badan noola shaqeeyay muddadii aan ku jirnay qorsheynta iyo abaabulka raashinka soo gaaray degmada Dacarta oo ay la soo gaarsiisay hay'adda Nutford sidoo kale waxaan uga mahadnaqayaa Cabdixakiin oo ah agaasimaha u qaabilsan gobolka Maroodijeex iyo dhammaan shaqaalaha gaar ahaan Nutford gaar ahaan gobolka Maroodijeex oo hadday tahay seminar iyo hadday tahay gargaar bini'aadanimo intaba nagala qayb gala sidoo kale waxaan ka salaamayaa dhammaan Jamhuuriyadda Somaliland oo horey madaxweynaha Jamhuuriyadda Qaranka Somaliland Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi iyo madaxweyne ku-xigeenka aad u mahadsantahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mar labaadka waxaan halkan uga mahad celinayaa hay'adda kaydka qaranka raashinka Nutford oo halkan degmada Dacarta nagu guddoonsiisay 200 qoys oo ah dadka danyarta ah iyo dadka agoomaha ah ee jilicsan deeqdaas oo maanta ay soo gaarsiiyeen aad baan ugu mahad celinayaa waxaa kaloon bogaadinayaa shaqaalaha u shaqeeya ka hortagga aafooyinka qaranka Nutford gabi ahaantoodba oon leeyahay dadkiina saa ugu adeegaysaan ilaahay baa idinka ajar siinay mar labaadka deeqda halkan laynoogu keenay oo dhan 200 qoys degmada Dacarta waxaa ka mid ahayd degmooyinka abaarta ay taabatay walow indhihiina aad ku aragtaan ciddii xogteeda u baahan boorka iyo biyo la'aanta ka jirta labada qodob ee jira waxaa ahaan biyo la'aan iyo raashin la'aan alxamdulilah raashinkii maanta waa yimid biyahana allihii joogay baa jira taasi waa taa mar labaad waxaan leeyahay hay'adda kaydka qaranka raashinka oo aad noola shaqaysa degmada si gaara hadday tababar tahay hadday tahay sabanaar tahay hadday tahay raashin hadday tahay adeegyada kale ee bulshada aad noola shaqaynaysa 3 sano u dambeysay aad baan ugu mahad celinayaa dhammaan maamulkooga